بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed ee dhageysanaya waa lama arkaan buugi aan ka sheekeynaya Soomaalida meesha ka timid ee Masar aan ka keenay buugan wuxuu ku qoraa marka hore afkii faraacintii waxa lagu turjumay Carabi isagoo oo baaba'san oo yaabayso garanayso qofkan buugan wuxuu ku sheegayaa Soomaali halkay ka timid aan inkiri kareynin Masar ayaa haysay weligoodii Allaheedna way dan kama gelin sababtoo ma ahayn taariikhdeeda taariikh dadeed bay ahayd oo Soomaaliya ah buugaana waxa ay ka dhaxleen oo ay laga soo qaaday Fircoon gurigiisii markii la helay alaabadii Fircoon bay ka mid ahayd buugan marka Carabi baa laga dhigay halkan xabeen aniga hayaa yaaba ka jiraba hadda inta la hayo anigana aan ku guuleystay inaan soo saaro buugi marka waxa la yiraahdaa asal afriiq sool intaan taa buuga gelin dad badan baa waxay soo weydiiyeen markaan ka hadlay ogaadeen iyo nimanka la yiraahdo ishak waxa la dhahaa qoladii aan anigu hadda Soomaalida la yaso ee la quursado إن شاء الله تعالى dad badan ba waxay dhaheen magacan midgaanka ka daa waxa la igu yiri la heeb soo cadhe taas dad ba itoosiyo aan ku mahad celinaya dadkan la heeb sooco waxaan doonayaa in hal idin ka dhadhacsiyo war anigu Soomaali baan ahay wallahi billahi tallahi inaan been idin sheegaynin magacan aad igu saleynaysaan ee aad maleynaysan inaan ogaadeenahay miyi waxaan rabaa Soomaalida Ilaahay wuxuu ka dhigay khaa'in wuxuu ka dhigay daacad ninaan rabin mid aan diin rabin war wadad Ilaahay inta waxa ka maqan dhiishka maqalka ayaa ka maqan Soomaalida hadii dhiishka maqalka lahaan lahayd waa receiver kulligood dhan waa transmission wax bay gudbiyaan laakiin receiver ma laha dhibaatada Soomaaliya ay la degilaad ay haysto dadka receiver hadii lahaan laayeen wax bay faa'iidi lahaayeen wax bayna dhageysan lahaayeen wax bayna maqlaan wax baan iska bedeli lahaa dhibaatada Soomaaliya ay waxba iska bedeleen dadka dhan waa transmission waxaan qaada anaa ku sheegay waay receiver ma ogola qofka Soomaaliya inuu dhageysto jaahilnimadii anagoo noo si dheerta hadana waxa ka sidranba uqdad rabbaani ah waxaana saaranba ma artay iska dhicin ninka ayaa laga dhicin miya I don't know waa wax rabbaani oo dhiigeena galayba waa buugan soo sheegay buugan dad baa iga codsaday wuxuu yiri Soomaalida waxay ahaan jirtay saddex qaybood waligin miidan maqal aniga koor dhageysta sola jita iyo cool sola waxa la yiraahdaa buu dhigi jiray dadka xeebaha degan ee marka ganacsiga ilbaxnimada haysto ya sola la yiraahdaa buu leeyahay dadka waa dad cadcad waa dad Arab garanayso kuleel inuu haya ah oo dal kuleel ku nool asal ahaan inay Arab yihiin oo cad yihiin ba dareemaysaa bir dadkan Soolaha la dhaho dadkan marka Soolaha la yiraahdo waa dad degan waa dad qabow oo cool ah waa dad aanan dad dhibaato ahayn waa dad ma aragtay mas'uuliyad ka muuqato waa dad xukumayay bir dalkaas waligii ali waa kun iyo wuxuu leeyahay taariikhda Yurub markaan idinku bedelo 46 ama wuxuu leeyahay 900 buu ka bilaabaya ilaa 1040 uu leeyahay intaas u dhaxaysa iyo 800 sano ilaa 1040 buu leeyahay buugan dawlad Soomaaliyeed baa la kaashan doona haduu Ilaahay yiraahdo waan la soo saari doonaa waxaan rabaa inaan idin kaga sheego sool markuu dadka noocaas ku tilmaamayo wuxuu leeyahay jiita oo iyagana waxa jiro cool kuwa la yiraahdo cool wuxuu ku leeyahay waa dad kulul oo waxay degaan buu ku leeyahay buuraha iyo qariga iyo maartay wabiga ma ogola biyo ma ogola waa dad wuxuu yiri kuleel iyo qaxar iyo qad oo xoolo dhaqato ah buu yiri oo dhaw cool ilaa waxay isku xiran yihiin biyo Ethiopia markaas wuxuu ku leeyahay dalka Ethiopia ana hadda Ethiopia magac kale ku sheegayay wuxuu leeyahay hadda aan hilmaansanay dalkaas wuxuu ku xiran yahay buuray degi jireen buur dadkaas ilaa dadka halkaas waxa u maleynaya kuwan hadda waqti dambe beenta laga sameeyay ee la yiraahdo kushitigi inay taan u maleynaya wuxuu ku leeyahay dadkaas cool baa la yiraahdaa buu ku leeyahay cool waa wuxuu ku leeyahay waa dad haraatan waa dad kulul waa dad qaxar iyo dhibaato iyo halaag iyo ma aragtay qarid inay deganaadaan jacayl buu leeyahay waxa ku xigu ku leeyahay jita
jiita marka wuxuu ku leeyahay waa dadka webiyada dadaan buu ku leeyahay waa madmadow waa gaagaaban yihiin xogo wejigooda waa ka balbalaaran yihiin kuwan afrikaanku sheegaya dariskana leeyahay ama aan dhahno magac kale aan dadka kala macaaye saad u farsanay tala dadka waa dadka asalkooda afrikaan ahaanta ah oo afrika soo jeed wuxuu ku leeyahay dadkana jiita la yiraahdayo waa webiley buu leeyahay oo biyaha webiga iyo dhinacaas degayin markay wax u baahan yihiin jiita iyo kuul wax u imaan jireen soola wuxuu haystay buu ku leeyahay dhulka xeebaha oo dhan ee Soomaaliya haysan jiray wuxuu ku leeyahay waa dad ganacsataa waa dad carabahaas iyo halka ku xirraa buu ku leeyahay soola marka dad oo xukumayna weeye dhaqaale iyo siyaasad badalka Soomaaliya xukumay weeye buu leeyahay marka waxa dhacday buu leeyahay waxa yimid oo soo gaajooday oo kuwan abaar iyo wax keenayba qolada dhijida jiita oo webiyadii iyagana ka guray buu leeyahay oo rafaadsan iyo waxa yimid buu leeyahay nimankii dhihi jireen cool iyagana kuwana oo imaadeen waa la dajiyay buu leeyahay waa raashin waxba la siiyay waxa ka tirsanaadeen buu ku leeyahay heshiis baa la galuulay marka inay dhulkan wax dhibaato u geysanin inay la deganaadaan inay walaalo yihiin inay sidaasa isaga oo magac guud markaas aan lagu ballamay in la sameeyo waxa dhacday marka jiitaha iyo suu leeyahay kuulaha waxay hoos ka heshiiyeen buu leeyahay inay ninkan u qabeeyaan oo la dagaalamo waa dad qaxar oo dhibaato miiran oo xaraan iyo xalaalba kala jecleen buu leeyahay oo dhiba oo dadkan soolaha ee degan ee qabo walaalada soo dhaweeyay aanan u ogoleen noloshu leeyahay marka way weerareen buu leeyahay marka buugani way weerareen markay weerareen way jibiyeen kooxdii soola markay jibiyeen baabi'iyeen way baabi'iyeen buu leeyahay wax badda ku dhamaado wax yar oo ka haray oo ka cararay buu leeyahay oo maaligoona dur waligood duurka ku noolaayeen waa dadka hadda aad heeb socdaan buu yiri maaragtay ugaarsanaya buu yiri ugaar bay galeen buu yiri saas ku ugaarsadeen buu leeyahay marka waxa dhacday buu leeyahay nimankii jiita iyo nimankii la dhijir kool waa isdhax galeen oo way isguursadeen buu leeyahay oo walba laba qaxar bay ahaayeen dalkoo dhanna way la wareegeen buu leeyahay iyo dadkii oo dhan saasa marka nimankani loo yasay buu leeyahay oo loo raacdaystay buu ku leeyahay waxa dhacday ku leeyahay marka nimankii markay sidaa noqdeen noloshii ay ku adkaatay ganacsigiina ay ku adkaatay meel ay aadaan garan waayeen badiina ay garan waayeen ayaa waxay sameeyeen buu leeyahay inay qaarkood iyaga ku dhigoodii ay ku soo foolaato nolol aad u xun oo iyaga ku dhigooda xataa ay kala jajabeen oo qaar dhan ma noloshooda hore ku laabano qolaj qaar ay dhan anagana jiitadana maan ku laabano qaarna halkoodiiba iska joogeen qaarna waxay u safreen halka iyo Masar buu yiri oo waa qolada Fircooniga leeyahay buu ku leeyahay buugan hadda ninka maartay turjumay Asaalixdiin marka buugan hadda rabtaan waan idin wadaya mashruuciisaas intaasaan ka sheegaya buugani taariikhdana waa taariikh dhaba oo xaqiiqatan wuxuu ku leeyahay nimanka soo la yiraahdo waa niman degan waa niman akhyaara waa niman aan dhibaato iyo ma aragtay ka nasab asalkoodu inay way ka qurux badan yihiin buu ku leeyahay jiitaha iyo way ka qurux badan yihiin buu ku leeyahay labadan waa laba isguursato ku leeyahay asal ahaan marka fiirsan Afrika ku leeyahay laakiin jiitaha iyo nimanka la yiraahdo kuulaha oo kuwan beeraha iyo kuwan duurjoog aafad xoolo dhaqatada dalkan dadka sidan u galay baabi ilaa xilligan horta waa annaga way intaanada kala way inta soo la ahayn Soomaali sheegato dhan waa jiitahaas iyo waxa way kuulkan dhibaatada wada ilaa xilligan aan degi laana wuxuu yiri waa dad dhib maran waa dad kharaad miran waa dad saas ilaa fiir buuga xilligu ka soo sheekeenay Soomaali wuxuu ku leeyahay dad fiirso qofka asalka umaba Soomaalida maba galu ku leeyahay umaba qalmaba dadkana jiitaha iyo kalenta wuxuu yiri uu ka degan yahay uu ka akhriyaarsan yahay uu ka deeqsisan yahay uu ka wanaagsan yahay uu ka ixtiraam badan yahay xataa laftiis marka fiirso ku leeyahay waa ka qurux badan yahay ku leeyahay isku laf ma isa ka qurux badan marka nimankan aad u bixisaan heeb socdaan Soola la yiraahdo ay la socda waa asli waa madaxdeennadii rasmiga ah waxa isku tagay labadan Mooryaan ee jiitaha iyo kuulaha annaga ka koobanahay Soomaalidana kale waan wadi doonaa cashirkan insha Allah ta'ala la socda professor badan baa soo codsaday Soomaali badan baa soo codsatay insha Allah ta'ala buugin waxa laga codsaday inaan la kaashado dad badan oo Soomaali ballan qaaday inay daabacayaan marka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh